السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وضع السلام يا برشاد الصوماليات ملك استجوبتان بعد السلام ولا له غالية مالمه وحاسوب حيد نير رجل الضمر أو حمان يفص معناها كشيء كين الساعة وحن دينتين وقول وحن مد الصوماليات وقولين معناها برشاد الصوماليات لا عكينية wargoormaynu noqonay dhalinyar xumaha isfarta wanaagana aan sarin wanaagga inaynu isfarno oo xumaha iska reebno waa muhiim adduunka nina ku sii waarmaayo adduunka nina ku sii maayo adduunka waa laga wada tagayaa qof ku waaraya ma jirto buurahaas xitaa la laabaya markaas aad doonaysaan adduunka idinko aydin garanayaan saacadiinu xilli ay ku eeg tahay iyo saacadiinu xilli ay istaagayso iyo saacadii la idinku talagalay xilliga dimanaysan idin ogeyn oo warna u hayn ayaa doonaysan xumahana aad wadaan sidee bay ku dhacaysaa ina idinko aad waqtigiina leedii cayema oo xaq leeyni ka qoray maalinta uurkooyadii leeyni ku beeray inaad waqtigaana dunida imanaysan waqtigaana dunida ka caraabaysan idinkoon ogeyn oo war u hayn inaad maalin iyo habeen kasta xumo iyo fusuq ku jirtaan iyo macsi waradeen wanaag isfurno oo xumahana iska reebno inaguna weyn hagaan wadankeena xaq rabbiba xabsi daayin oo xaq rabbiya layna ka xukumay maalin kasta dhiig islaam ba ku daadanay maalin kasta gobol kasta Soomaaliya dhiig islaam ba ku daadanay maalintii 200 ama 50 ama 20 ba wadanka ku daato oo dhiiga oo kambaa'iro oo dambi maalin kasta Ilaahay laga galiya markaasa doonaysaan dunida inaad tiraahdaan waan la simanaa dunida dawlad baan ka noqonaynaa dunida waxbaan ka noqonaa markaasa doonaysaan inaad tiraahdaan idinko xumihiina aan iska reeban wanaagina aan isfaran wixii xumaay akhlaaqda ahaa oo dhanna macna talaabsanaya سلمان ما تحقق وكيشت على حنبك كيشت حقيقة ما أنت برفق حقيقة وبدأس برفق بصون نقطة مركوين ميلو البلا صدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما وين والسلام إن معلومة وحاسوب حذف لي قبض إن فرحية قرقر مياه مس وعين كاسياد يميت كلا كوسر عين كاسو قرنت هاي وده يعني وهل بالك يقواسدان gabadha hay sarreega sidaan ay dumarka uga shaqeeyaan iyo maxaa leeyahay kuloodansa war illa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah wada wanaagan isfarno xumahan iska reebno bulsho ilaahay bay ku dhaarshay oo ilaahay bay ku dhaarshay moobilka xilliga uu baytaro ka dhacay waa la socotaa intaas minba ku waadhay wal gulay daqiiqo ku waadhay 15 daqiiqo minidada ugu dambeeya xilliga uu dhacay xitaa waa la socotaa laakiin noloshaadu xilliga ay ku eegta war ma haysid noloshaadu xilliga ay ku eegtay mug salaada duhur xilliga ay soo galayso waa ogtahay salaada casr ay soo galayso waa ogtahay salaada maghrib xilliga ay soo galayso waa ogtahay wax kasta waa xilliga ay leeyihiin waa ogtahay laakiin noloshaadu iyo naftaadu xilliga ay baxayso miyaad ogtahay qof waliba haduu ogaan lahaa dunida khayr baa la wada shaqaysan lahaa qof waliba haduu og yahay garbihiisa labada malag ee saaran waxay ka qoreen inay wanaag yihiin inay xumaan yihiin qof walba wanaag u shaqaysan lahaa qof walba saacadiisa duu og yahay u dhimanayo qofna dunida ma xumaado qof walba wanaag u shaqaysanaya laakiin si adigoon ogeyn sidee ku dhici kartaa inaad macnaha wanaag intaad ka baydho xumahana aad u baydho sidee ku dhacdo waxyaalaha mararka qaar aan isweydiiyo markaan arko gabadh snapchat iska duubasay qaawan mustaqbal bay sugaysaa nin guursaday sugaysaa ubad inay dhashay sugaysaa inay kuweedu diin islaam si qabsadaan bay sugaysaa afkana waxay ka dhacaysaa la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah dusheedana way qaawinaysaa waxaad arkaysaa wiil khamriga isku shooya isagoo kalaabka ku jira dhaay halkan ay ka shidan tahay isagoo biirka cabaya wiskiga cabaya wax walba cabaya oo dhaay halkan ay ka shidan tahay saacad bay mooga ma laga yaabaa nafsadu inay kaaga baxdo oo dhahay halkan ay ka shidan tahay baar dhexdii iyo khamri dhexdii kina inay naftu kaaga baxdo
adduunka loo aakhirana jahannamaad ku baaraysaa lama socotid taymka xilliga noloshaadu ku egtahay ma socotid taymka noloshaadu ay waqtigii loo inay bari doonto in saacada aan kula hadlayo ama saacada aan kula hadlay tayadu bixi doonto Allahu ya'lam ilaahay baa laakiin wax ku ool wax aakhiro ilaahay wanaagsan aad la hortagtid adduunka ku shaqayso adduunka waxa shaqaysataa maal adduunka guryaha tabcata adduunka maal baa tabcata laakiinse adduunka in ka badan baa aakhiro lagu waaraya inta ka badan adduunka aad aakhiro ku waarayso sikin hadii adduunka saaranta in yaro dhib inay ku gaadho muuqlin ka war intaasoo sano aakhiro lagu waaray intaasoo kun oo sano aakhiro lagu waaray aakhiro waa lagu waaray adduunka marka la laabo ka war hadii aad cadaab noloshaada cadaab ku waarto cadaab qabri noloshaada aad ku waarto sababtoo tay dunida dusheeda marka saarneyd waxaad shaqaysan jirtay dambi iyo dunuub baa shaqaysan jirtay waxaan diinta ogoleen baa shaqaysan jirtay waa sinaysan jirtay khamri baad cabi jirtay xashiishad cabi jirtay gabadhii ka soo horbaxday waad caayi jirtay qofna ilaahay caayi jirtay qofna ma caawin jirin aakhiro xitaa farahaaga kugu marakacaya fartaaga fariirada kugu marakacaysa waxay dhahaysaa qofkan waligiiba wanaag nagu qaban xumo mooyaane adam masaajid baan joogaa waad aragtaan masaajid baan ku dhex jiraa anu masaajid baan waqtiga badan ku qaataa kama dhex baxo beedka alla kama dhex baxo kama fogaado intaan cafeteria meel cafeteria waqti ku qaadan lahaa masaajidkan soo galaa madbaqa masaajidkan shaah kafees kaga karsadaa bulshada masaajidkan iska joognaa iska sheekaysanaa quraan baan akhrisanaa macnaha nolosha waqtiga waxaanu siinaa baryada ilaahay waqti baanu siinaa alla ka cabsiga waqti baanu siin war waxa hadii aad nolosha qaybna shaqaysato qaybna aad siiso khayrka noloshaadu waxay noqonaysaa mid macnaha rug ay ku waarto iyo rug ay ku noolaato iyo rug wanaagsan oo ay ka ambaqaado way yeelanaysaa nolosha alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh laakiin hadii aad naf ku fakarayso inaad jarto laakiin hadii aad ku fakarayso inaad qof tulmido laakiin bilaadeen inaad cunto hadii aad ku fakarayso inaad maanta tiraado halkan ay ka sheentay hebla aad bari la hasow hebla bari toole hebla bari waqti la qaado caawa hebla xilliga u tag wallahi billahi tallahi wallahi waxa ku sugaya 2 mitir ba ku sugaysa gurigaaga rasmiga ba ku sugaya ama xumaan dunida ku shaqaysa ama wanaag ku shaqayso wallahi gurigaaga rasmiga ba ku sugaya wallahi aad dhinacna uga badbaadan meelna aad uga badbaadan sababtoo tahay inta dunida saarnayd ilaahay jaanis iyo cibaadadiisa iyo salaadiisa iyo xariga jaanis maadasin ilaahay xaqiisana jaanis kuma liid maalinta aakhiro ilaahay xaqiisana iyo jidkii nabiga dadkii ku foofay wadadiisii lagu siin maayo jaanis waxaad ku foofaysaa jidka ibliiska ku foofaysaa jidka naarta jahannamaad ku foofaysaa sababtoo tahay adduunka markaa saarnayd wadadii rasuulku u maray maadan marin xariga ilaahayna maada qabsan masaajidkaasaan ku jiraa gurigaygaan ka yimi waxaan jeclahay inaan time ku qaato masaajidka warqadahaasaan wadaa masaajidkaas kale oo warqadaha masaajidkaas kale waxaan lacag uga soo aruureynaa dadka macnaha shaqaysta waddankan aan ku noolahay gaar ahaan state-kan deganahay maalinta xadda waxaan jeclaysanay dhalinyarta waas qaybinay inaan dadka u tagno inaan masaajidka dhaqaalaha wax ka soo bixiya marka waxaan idin sheegayaa warniyow aynu iska reebno xumaa marka hadii nolosha ka soo qaad caawa hadii aad guri gasho aad istiraado seexo oo gurigu huur kugu noqdo hurda ka iman mayso dhidid ba ka imanaya wad gubanaysaa huur ba dareemaysaa cidhidhi ba dareemaysaa waxa dareemaysaa walwal ba dareemaysaa daaqada dadkii ku hurdashay albaabka sida leeyr iyo hawo iyo nasteexaad u hesho laakiin marka aakhiro aad adduunkana aad fusuq iyo macsi ku jirtay aakhirana iilka lagu dhiga 2 mitir ah ee adiga iyo malaa'igii ka su'aalaha ku weydiinay la iska kan dhex baxo ee albaabada naarta lagu furo daaqadaha naarta lagu furo ee aad cidhiidhi doonto la saal isku ka jabiyo cad haysa
maalintaas aad ilaahay ciirsi weydiisanaysaa maalintaas ilaahay toobad weydiisanaysaa ila dunida dusheeda waxba ku weydiisan weeyday ila dunida dusheeda macsibaad ku jirtay ila dunida dusheeda mar walba waxaad ku jirtay xumaan baad ku jirtay mar waliba shaydaanka Allah walaalahay mar kastaba shaydaanka mada faaruq si jirin mar kastaba wadada shaydaanka saarnay mar kastaba qabyaaladaystaad mar kastaba ajal go'da ka shaqeynaysa mar kastaba reer ku duulad ka sheekeynaysa mar kastaba waxaad ahayd qof macasir raadsada laakiin adduunkan lagu waari maayo qof waliba ku waari maayo qofna teemku ka baxay mooga qof walba ku fakar kuna ducayso ilaahu gafkayga iyo geerideeda ku aansin ilaahu mar kastaba adoonkaagi baan ahay ilaahu ay duleyn mar kastaba ku ducayso mar kastaba ilaahu soo jid xaalaysi ilaahu ursax xaalaysi ilaahu awlaad khayr qabtaysi ilaahu aniga iyo inta muslimiintaaba ilaahu jidka toosan ku soo hanuuni ku ducaysa mar kastaba Allah subhanahu wa ta'ala hadaad weydiisato baryada ilaahay lagama quusto war ilaahay lagama quusto la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waxa maanta iga dhawaajinaya waa markaan arkay gabdhihii Soomaaliyeed odayaashii Soomaaliyeed sheekhdii Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa macsi iyo sida la isku isticmaalo la ilaha illa allah adduunkan waa laga dheelmanaya wadankeeni waa burbursan yahay dagaal baa ka socda sokeeye reer hebel baa ishaya maanta hebel baa la dilay Facebook la soo dhigay Allah yarxamar raaximiin fanaan baa heesaya ma sha Allah baad ku soo qoraysaan wadaad baa maanta wuxuu qabanayaa live ama wuxuu qabanayaa boqol baa daawanaysa markaan arko Sheekh Mustafa oo macnaha live soo qabtay waxaan arkaa oo live soddon daawanaysa markaan arko ninka sheekeynaya macsina 2,000 baa daawanaysa ilaahay baa idinku dhaariyo ilaahay baa u dhowdiin mise macsidaad u dhowdiin inuu ilaahay ba adduunka intuu la rogo dhagaxaan idinka dhigi karo soo moogidin adduunka dhanba intuu laabo oo yiri adduunka oo taagan intuu qaaradiina Soomaaliya sida u laalaabo u dhagaxaan ka dhigi karo ila qoom badbaadi la halaagay alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh meedin ilaahay ka cabsan subhanallah ايوه شكرا ما في مشكله marka waxaan idin sheegaa Soomaaliya isma qalo Soomaaliya in wanaaga iska qaadano Soomaaliya aynu xumaha iska reebno wanaagana isfarno walaalayaal intaas ay ka baraya walaalo nin kastoo kitaabkaaga Ilaahay ku xubno oo salaad tuko waana in salaamaya walaal qaali aad baa in salaam imika waxaan baxaya magaalada Frankfurt banaadaya ee wadanka Germany ku taala insha Allah billaah walaha inta dhiman baan qaybinaya dadka jecel qof walba sadaqa la baxaya maalmahan waxaan soo gudbinayaa masaajid lacag loo aan soo gudbinayaa gudida aan live soo dhiisanayaa sanad ka qayb khayrkaas maantana warqaan faafinaya warqadahan aad aragtaan baan gudbinayaa oo warqadahaasaan gudbinayaa waad aragtaan Soomaali waa ku qoran oo warqadahaasaan gudbinayaa insha Allah bismillaahi kariim qof khayr la baxaya ama masaajidka kaliisa wax ka bixinaya ayaan u gudbinayaa sidoo akoonkiisa mar walba lacag uga soo shubo masaajidkana ugu soo shubo insha Allah bismillaahi kariim waan soo bandhigayaa bulshada Facebook-ga aad iyo aadna wad mahadsantiin marka Frankfurt baan soo baxaya maanta dukaanka Hafaanay mani Xamse weynoo dukaanka Hafaanay walaal aad iyo aadna wad mahadsantahay waxaan ku soo socdaa Frankfurt marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin waxaan idin leeyahay aad baan idin salaamaya wallahi Soomaali waan jeclahay wallahi Soomaali kama maarmo iyana igama maarmaan waa walaaladii waa ila dub waa ila diin waa eel laakiin wanaaga isfarno adeen maxaan walaala kana adeen wanaaga isfarno wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh